maanta oo marka dawladda shisheeye kuwa u adeegayo oo argagixisadi garab siinayo qarash iyo dhaqaalana ka soo qaatay sidii aan horeba u sheegnay waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan mar labaad ugu celino baalka haram caska la yiraahdo ama libaaxaba aan dhahnaa waahin raagiya markuu baahan yahay ilaa uu hinraagaas oo wadiyo ilaa marka dambe oo neefka ama geela oo dhunta uga dhigiyo oo uu dhiiga ka dhuuqo oo markaas uu shib dhaha ka soko marna shib dhihima marka kuwii shacabkan Soomaaliyeed mar walba dhiiga ka dhuuqi jiray ayaa hinraagii wili wada mana aqbali karno in shacabka Soomaaliyeed dhiigooda la dhuuqo oo maalin walba ma taqaanaa loo adeegsado gacmo shisheeye waxaad ogtihiin argagixisadu waa kuwa dadka qaraxyada u dhigaya waa kuwa ma taqaanaa shacabka Soomaaliyeed jid iyo jiha u diiday runtii waxaadna ogtihiin anigu muddo dheer ayaan argagixisada la dagaalamayn argagixisaduna waxa ay rabto waxa waaye Soomaaliya inay ka taqallusto dawladnimadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda kuwa marka dhahaya shacabka Soomaaliyeed jidadka jiifta ma taqaanaa dawladda rida qarash ku bixinaya oo barakacayaashii halkan ma taqaanaa lagu quudinayay oo loo bixiyo Muqdisho barakacayaasha Muqdisho maxaa yeelay Muqdisho barakacma baa lahayd ma ogtahay waa dadkii banaanka ka yimiday oo lagu daryeelayay ayay isticmaalayaan ay markaas lacag fooq aqli inta siiyaan ay ka soo bixinayaan kaamamka ay ku jireen markaas waxay leeyihiin lacagtan qaata dawladana ka hortaga waa dawladda quudinaysa oo soo dhaweysa iyagoo dhima raba halkan ku ma taqaanaa ku soo dhaweysa waxaan marka shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan adiga waxaad ogtahay dad oo sanatara ah oo aan ka soo qayb gelin weligood oo imaaraadka ku nool waa ogtihiin waad garan kartaa hadda adiga Cumar Cabdirashiid hadda haddaan ka soo qaadno sanatar waay halkaan ma yimaado soo ma xusaysa waxaad ogtahay xisbiyada halkaan fadhiya oo iyaguna qarashaadka halkaas laga soo dhiibay dawladda imaaraadku ay keentay oo aad u lixaada badan qaybinaya hadda ka horna ma taqaanaa aad ogtahay in dhibaatooyin fara badan laga mutay oo arrintaas ay dawladda Soomaaliya ka hadasho iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba arrimahaasi marka arrimihii waa soo laba lixaadsadeen iyagoo wiiqaya jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada waxaadna ogtahay dawladda Soomaaliya sidii ay mowqif u qaadatay dhexdhexaadnimo dawladda imaaraadku waxay cadaadin ku saaraysay oo u adeegsanaysay dad aan wadaniyad lahayn oo damiir lahayn ay u adeegsanaysay inay kula dirirto gudaha Soomaaliya oo shacabkii Soomaaliyeed ay u adeegsato iyadoo la marin habaabinayo inay markaas ma taqaanaa ay dhibaato ku abuurto si iyaga loo dhiginsado oo madax banaanida iyo karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed ay meel uga dhacdo taasna ummadda Soomaaliyeedna ma aqbalayso dawladda Soomaaliyeedna ma aqbali karta maxaa yeelay dalkan waa dal madax banaan ummadda Soomaaliyeed waa ummad qiyam leh himilo leh aragti qaran leh
cadowgeeda iyo mataqaanaa iyo kan u naxaya kala garanaysa marka arrimahaas oo ay arrimaha la qasbayo waxaana naloo kaga faa'iideysanayaa civil warki iyo dhibaatadii badneed oo aan soo marnay iyo argagixisadan oo annaga ummadda Soomaaliyeed mar hore lagu marin habaabiyey oo maxaakiim looga dhigay oo ummadan lagu dhameeyay waxaasoo dhan ayaa marka laga dhiganayaa wadadaas oo ay marka wadadan annagu ifinayno oo aan la aqbali karin idoo argagixisadii weli dagaal lagula jirana in iyagi inta heshiis lala galo si midaysan mataqaanaa ay u wada howlgalaan ayay maanta mareen marka arrintaas oo ay arrintaan rabno annaga inaan shacabka uga digno oo ay ka waantoobaan